السلام دمان مرتي شرفت halkan fadhida oo aan ugu horeysiinayo wasiirada ku xigsiinayo xogayaha dawladda hoose dhammaan madaxda kale ee aan magacyadooda haynin culimada waalidiinta ardayda faraha badan madaxda iyo mas'uuliyiinta uu hormoodka ka yahay Mahad Ibrahim maamulaha guud ama gudoomiyaha dugsiyada Nuuruddin maamulayaasha qaybaha kala duwan ee dugsiyada Nuuruddin kormeerka macallimiinta dhammaan bahda waxbarashada ee dugsiyada Nuuruddin waxaan aad iyo aad runtii ku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh runtii maanta waa maalin sharfan waa maalin aad iyo aad farxad u ah intaas oo arday oo horteeda soo fadhida iyo waalidiintoodii oo garbaha haya aynu maanta halkan isu soo taagno oo aynu la wadaagno farxadda ay mudan yihiin ee jawaa'iska loo qaybin doono haddii la yiraahdo iyo kaalmaha ay u galeen dugsiyada Nuuruddin khaasatan primaryada waxa ka cudud daaranayaa shalay oo ay barti qaadeen martida aan mas'uuliyiinta dugsiyada Nuuruddin inaan hawl kale uga baaqday darteed imakadan lafteeda iyadoo shiraan ku degdegayo aan Ismaaciil ka fasax qaatay laakiin aan rajaynayo haddii la yiraahdo in yar kadib marka shirka ka soo baxay inaan hadana ka qayb galo oo dib u soo noqdo farxadda aan la wadaago ardayda loo qaybinay jawaa'iska runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dhaado dugsiyada Nuuruddin waa qayb ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ama tiirarka ay ku taagan tahay waxbarashada qaranka Soomaaliland waayo markaan ka hadlo gudoonka ama waxbarashada gobolka Maroodijeex ee aan mas'uulka ka ahay waxa la yiraahdaa boqolkiiba 50 in ka badan ayaa qaranka waxbarashadiisu taala halkan haddii aan qiyaaso maanta dugsi dhexe iyo dugsi saraba waxaan oran karaa tiirarka ugu waaweyn aan garbaha yahay waxa weeye waa Nuuruddin ayaan oran karaa iyo qaybo kamid ah public iyo private ba waxaan leeyahay waynu mudanahay in aynu isbarbar taagno oo aynu waxbarashadeena aynu garab siino mahad haway badan baa lagu kaftamay in badan baa loo duceeyay laakiin kulli ducadu mar walba waa waajib ardayda uu faraha badan leh u baray waxay ka mid tahay qaybaha lagu sheegay xadiiska nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ee ubadka ayuu soo galaya macallinku waa aabuhuna waxa uu u hara ilma saalax baa ilmaha saalix wuxuu ka mid yahay sadaqatul jaariya waxaan hubaa maanta haddii uu hooydo mahad inta kun amba aan iraado boqolaalka kun ee arday uu wax baray ducadoodu inay halkeeda ugu tagi doonto sidii waalidka runtii waxaan la yiraahdaa lagu faantaa waa macallin weyn baa la yiraahdaa inta badan macallimiinta xisaabta dadka ugu waaweyn baa ka mid ahaa laakiin markaan macallinimo ka hadlo wax ku daba faylaya mahad sababta inta soo saaray baa aniga boqolkiiba boqol iyo intaas oo jeer iga badan runtii waxaan leeyahay maanta hadalka waa soo gaabinaya farxad iga weyn ma jirto inaan ka soo qayb galo xafladiinan oo aan la wadaago ubadka waana fasax doontaan insha Allah waan idin ducaynaya hadda kadibna waxaan ku dadaalayaa shirka marka ka soo baxay dib soo noqdo waan ku soo noqday insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh